kulanti wacan wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada warbixinadii kala duwanaa oo xilidan oo kale aad ka daawan jirteen page-ka YouTube-ka ee caasimada Channel. warbixintan idinana waxay ku saabsan tahay Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Mukhtaar Roobo oo ku tartami doona doorashada madaxtinimada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya yaase ku guuleysan kara. dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa u diyaar garoobay doorashada madaxtinimada ee maamulkaasi oo qabsoomi doonta bisha November ee ugu soo aadan, waxaana si weyn haatan u socota loolan lagu jiro qabashada xilkaasi oo musharaxiin badan soo baxayaan kuwaasi oo doonaya in ay madax noqdaan. madaxweynaha talada haya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah nin muddo dheer ku soo jiray siyaasadda gudaha ee Soomaaliya ayaa shalay sheegay inuu u sharaxan yahay mar kale, isagoo oo sheegay inuu wax badan ka qabtay Koonfur Galbeed. Shariif Xasan waxa uu sheegay in waxa la qabtay ay yihiin kuwa muuqda, isagoo oo sheegay in dadaal badan ay gelin doonaan doorashada siday u noqon lahayd mid furan oo beesha caalamka iyo saaxiibada gobolkaba ay qayb uga noqon lahaayeen. musharaxnimada Shariif Xasan ka sokow waxaa loolan adag ku jira isna xubno kale oo ka soo jeeda deegaanka, gaar ahaan kuwa isku hayaan arrimaha siyaasadda. sidaasi oo kale xubnaha wax dooranaya ayaa laftirkooda ah qaar ay ka mid yihiin kuwa diidan Shariif Xasan. Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo hore uga mid ahaa aasaasiyaasha Al-Shabaab, afayeen iyo taliye ciidan hore uga soo noqday kooxdaasi, balse labadii sano ee la soo dhaafay ka maqnaa ayaa haatan loolan adag ugu jira qabashada xilka sida ay soo tabinayaan wararka aynu ka helayno Koonfur Galbeed. Mukhtaar Roobo waxa uu haatan gaadiidka aan xabadda karin geystay magaalada Baydhabo, waxaana ammaankiisa sugaya ciidan uu gaar u leeyahay, kuwaasi oo tababarada ay qabaan horey uga soo qaatay kooxda mayalka adag ee Al-Shabaab. Roobo ayaa waxa uu taageero dhinaca dhaqaalaha ka helaya qaar ka mid ah dalalka Soomaaliya taageere ee reer galbeedka. falanqayaasha dhinaca siyaasadda ayaa rumaysan in haddii Shariif Xasan loo guuleysto doorashada Koonfur Galbeed ay ka dhigan tahay tallaabo kale oo fariin u ah saaxiibada xagga siyaasadda, waxaana dariskiisa Jubbaland iyana ku soo wajahan doorasho xiisadeeda wadata oo halis gelin karta deganaanshaha guud ee mandiqadan curdanka ah. intaas ayaan daawadeel ku soo gabagabeynaa warbixintii aynu kaga hadlaynay xog ku saabsan Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ku tartami doona madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo cidda ku guuleysanaysa. daawadaasha ku cusub page-keena YouTube-ka ee caasimada Channel waxaan ka codsanaynaa inaysan ilaawin subscribe, like, share si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ay u helaan.